maanta cashirkeenu wuxuu ka warrami doonaa ka warramo tuumbada loo yaqaano Naso gastric tube iyo habka loo geliyo qofka tuumbadana loo geliyo sanka ka hor inta aynaan u gudagelin procedure-keena waxaan u baahnaa soo diyaarsano qalabkan iyo daawooyinkan ay ka mid yihiin non-sterile gloves aynu gashanayno Naso gastric tube tuumbadan waxay ku timaadaa sisters kala duwan guud ahaaneed waxay ku timaadaa vein port tube tuumbada dadka lagu quudiyo iyo large port tube tuumba iyadana dareeraha caloosha qofka laga soo daayo waxa kale oo u baahnaa lubricant gel green waxaan u baahnaa flashlight or torch waxa kale oo u baahnaa water oo biyaha la siiyo qofka biyaha qaba waxayna inaga fududeysaa inaynu si fudud tuumbada aynu u gelin karno inaynu u dhaadhicin karno waxa kale oo u baahnaa empty space oo biyo daruuri oo la siiyo qofka xilliga uu matagayo aynu procedure ka sameynayno sameyn ugu matagin medium size xabadkii sample aynu u baahnaanayna waxa kale oo u baahnaanayna wax loo yaqaano luminous streams oo lagu eego pH-ka caloosha waxa kale oo u baahnaanayna tummy sandwich ama catheter tipto waxa kale oo u baahnaanayna drawing-ka waxa kale oo u baahnaanayna in leena protective iyo disposable bag bacda qashka ku dhigno waxa loo baahan yahay inaynu iska ogaano ka hor intaynan qofka gelin in hore qalin lagu sameeyo sanka ama dhaawac laga yaalo ama neefsashadu ay ku adag tahay doreel ama labada dooleys kadib waxaan sheegnay in qofka haddii weli karin neefsada markuu neefsada kadib waxaan ka sameynaynaa baaritaan ayaynu sanka ku sameynaynaa waxaynu ka eegaynaa wax dhaawaca inuu leeyahay haddii uu leeyahay ka kale ayaynu dooranaynaa kadib marka aynu doorano aynu ka weynaa waxaan soo qaadanaynaa tuumbadayna inagoo cadireenaynu kaga bilaabaynaa sanka ilaa dhegta ilaa labxada markaynu gaarno labxada aynu gaarno halkaas ayaynu calaamadsanayna inagoo calaamad u yeelayna tuumbada kadibna waxaan xidhaynaa marada luqunta si ay uga ilaaliso mataga ama wasaqda ka galaysa xilliga aynu tuumbada aynu gelinayno hoos ayay u foorarsan doontaa waxaan u baahnaanaynaa ilaa xagga dhegta ayay u foorarsanaysaa waxaana loo yaqaana meesha dalqada markay u foorarsato waa halkay sanka uu ka galo dalqada tuumbadayna 190 digrii xagga ayaynu keenaynaa tan waxay yaraynaysaa halista tuumbadayna xagga dambe isku duuduubta markaad kadib waxaan marinaynaa lubricant gel kadib waxaan gelin doonaa sanka haddii aanu dareeno xilliga intaynu gelin wax iska caabiya oo aan hore u jirin ama wax dhibayo qofka inaynu gelino xaaladda noocaas oo kale haddii aynu la kulno aynu ka saaraynaa tan kadib waxaynu gelinaynaa ka kale si naxariis leh inagoo wudgelinayn waxaynu ilaalinaynaa oo aad inay inaga gaadhayso tuumbadeena markay gaadho dalqada ayaynu ilaalinaynaa inagoo dareema iska caabin yar tan kadibna waynu fuurarinaynaa tuumbadeena inagoo u rogaynaa 190 digrii xagga haddii bukaanku waxa inaga mamnuucaysan jirin inaynu biyo siino biyaynu siinayna si aynu ugu fududaato gelinta tuumbada waynu wadaynaa tuumbada ilaa inta ay ka gaadhayso meesha aynu calaamadsanay bukaankana mar walba xumisha inuu biyo yar uu cabo oo caadirna ugu loqo si aynu ugu fududaato gelinta tuumbada sidaarsa haddii bukaankuusan awoodi karin wax dhiba ma laha tuumbada way gelinaysaa markaynu gaarno cabirka aynu u baahnayn aynu calaamadsanay waxaynu intaa ka dambe xaqiijin doonaa inay ku jirto inagoo soo qaadanayna tummy sandwich kula soo nuugayna dheecaanka caloosha aynu ku soo nuugno ayaynu eegi doonaa pH-ka inagoo dheecaanka qaadi doona markaynu soo nuugno dheecaankaas markaan qaadnana waxaan ku baari doonaa blue litmus strains oo blue waraaqdaas waxay isu bedeli doontaa casanka isu bedesho caloosha ay ku jiraan haddii kale waxaad soo qaadan kartaa biyo ayaad tummy sandwich ku soo qaadan kartaa kadibna soo qaadi stethoscope adoo saari gastric ama labxada kadibna waad ku tuuji doontaa biyaha kadibna waxaad dareemaysaa dhawaqa caloosha ay bixinayso iyo biyaha ku shubmaya ee dareemi doontaa laakiin procedure-ka noocan laguma kalsoona haddii wax shaqeeya kaaga jira isticmaali kartaa just x-ray adoo ka xaqiijinaya kadib waxaad ku dhejin doontaa tuumbada ayaa sanka ku dhejinaysaa adoo isticmaalaya xabadka waxaad ugu dhejin doontaa sanka adoo inta kala soo hadhay xabadkan ku duubi doona tuumbada marka aad sanka si wanaagsan aad ugu dhejisid ee tuumbada aad ugu duubtid dhinaca kale ayaad ku soo dhejin doontaa kadibna sanka dushiisa markaad ku soo dhejisid waxaad hoosta ka marin doontaa tuumbada adoo si toosa ugu duubi doona tuumbada markaad inta aad samaysid waxaad iska ilaalinaysaa tuumbada inaad ku guujisid sanka ama cadaadis fara badan aad ku samaysid sanka haddii aad ku samaysid waxaa dhici kara necrosis wax loo yaqaano in ay dhib ay qofka ay soo gaadho
protein-ka waxaad ku soo qaadan kartaa tomis rich caanaha ama waxaad ku quudinaysid haddaad isticmaalaysa large protein-kana waxaad ku xidhan kartaa branch bag-ga mar walba waa inaad iska qortaa procedure-ka indication-ka iyo seska